Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaaw Xiskaal, waxaan idiin soo bandhigi doonaa sawirro kuwaasoo Islaamka lagu dhakray ama lagu xumeeyay. Waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa 5 sawir oo in badan oo dadka aysan fahmin. Laakiin intaan fiidiyowga bilaabin like saar sida uu ogaano dadka daneynaya muuqaaladan oo kale. Midka koobaad, doofaar cunaya musxafka ama kitaabka. Sawirkan ayaa ku faafay sanado fara badan baraha bulshada, wuxuuna sida aadka ugu faafay bogagga kala duwan ee Facebook. Laakiin sawirkan waa mid been ah, waa mid lagu xumeynayo muslimiinta, ayadoo dad fara badan ay ka jawaab celiyeen. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay inuu sawirkan yahay mid been ah, oo sawirka saxda ah ee doofaarada waa midkan, waxaana loogu talagalay in Islaamka lagu xumeeyo. Midka labaad, malay diig ah mar kalena doofaar ah. Sababta aan sawirkan xaqiiqdiisa u feeday waxay tahay ayadoo dad fara badan ay fahmi karaan inuu Photoshop yahay, laakiin waxaan la yaabay markii aan arkay ayadoo sawirkan intaas oo kun ay ka jawaab celiyeen si uu yahay xaqiiq. Marka waxay noqotay inaan sawirkan idin bayaaniyo. Malayga leh madaxa diiga mar kalena leh madaxa doofaarka. Dad fara badan ayaa waxay sheegaan inuu sawirkan yahay malayga lagu magacaabo malayga doofaarka. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay in malayga doofaarka uu sidan yahay, waana kan sawirkiisa dhabta ah. Laakiin midkan waxaa lagu sameeyay Photoshop, waana kan asalkiisii. Midka saddexaad, diyaaraduhu ma awoodaan inay maraan Kacbada korkeeda. In badan ayaa lagu soo celceliyay qisooyinka iyo khuraafaadka sheegaya inay diyaaraduhu mari karin Kacbada korkeeda, ayadoo dadka qaarkiisna leeyihiin uma suurtageli karto inay Kacbada korkeeda maraan diyaaraduhu, maxaa yeelay waxay la kulmayaan majaalaad iyo waxyaabo qarxinaya ayada oo dhan, waana sababta u diidaysa inay korkeeda maraan. Waana mucjiso oo qof walba fasir u waayay. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxaas oo dhan waa khuraafaad iyo been aan raad lahayn. Oo xaqiiqada saxda ah waxay tahay meesha uu ku yaala Masjidul Xaraam ee Makka al-Mukarrama waa ka mamnuuc inay diyaaraduhu maraan, maxaa yeelay xaramka wuxuu u qaasiyay muslimiinta oo kaliya. Sababta labaadna waxay tahay Makka waxay ku taallaa meel buur ah, waana sababta ay diyaaraduhu u kormari karin si ay u sababin tashwiish dadka dukanaya ee tirada badan iyo kuwa kale ee gudanaya manaasigta umrada ama xajka. Waxaana Makka ku arki kartaa hal madaar oo kaliya oo u gaar ah muslimiinta, mana ku arkaysid madaaraad kale. Madaarka u dhowna wuxuu ku yaalaa magaalada Jidda. Midka afraad, mas leh 3 madax. Sawirkan ayaa sidoo kale baraha bulshada ku faafay muddooyin fara badan, waxaana la dhahaa mas leh 3 madax oo ka soo jeeda Hindiya. Waxaa kaloo jira mas asna leh 5 madax sida midkan oo kale, laakiin dhammaantood waa khuraafaad iyo been. Sidee sawirkan xaqiiqo ku noqon karaa? Way jiraan masas qaar oo leh 2 madax, laakiin weli lama arkin mas leh 3 madax. Laakiin sawirkan ku faafay baraha bulshada waxaa lagu sameeyay Photoshop, waana kan sawirka saxda ah iyo asalkiisii. Midka shanaad, qabriga Nabi Aadam calayhi salaam. Sawirkan ayaa sidoo kale ku faafay baraha bulshada, ayadoo dadku ay sheegaan Nabi Aadam calayhi salaam inuu yahay. Kuwa kalena waxay ku sheegaan inuu yahay qabriga Nabi Cimraan. Haddaba maxay tahay xaqiiqdu? Marka hore ma jiro nabi la dhaho Cimraan. Cimraan wuxuu ahaa aabihii dhala Maryama, oo waxa la dhihi jiray Maryama bintu Cimraan. Laakiin ma aha nabi oo wuxuu ahaa nin wanaagsan. Qabrigan ayaa wuxuu ku yaalaa magaalada lagu magacaabo Salaala ee Saldanada Cumaan. Mana ahan qabriga Nabi Aadam. Mana jiro sawirro laga hayo qabriyadii nabiyadii hore. Qabriga Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ku yaala magaalada Madiina iyo qabriga Nabi Ibraahim calayhi salaam oo Falastiin ku yaala maahe. Dadka sheegaya inuu qabrigan yahay Nabi Aadam calayhi salaam waa been aan raad lahayn. Laakiin baaritaan dheer kadib waxaan soo ogaaday inuu qabrigan ahayn kii Cimraan, oo ahaa nin wanaagsan oo Quraanka lagu sheegay. Qabrigan waxaa ku aasan nin Bakistaan ah oo lagu magacaabo Al-Nabi Cimraan, kaas oo dhintay sanado badan ka hor. Intaas ayaan ku soo koobayaa fiiditaanka xaqiiqooyinka. Waxaan rajaynayaa wax badan ka faa'iiday. Haddii aad ka heshay like oo subscribe samee.